haki yetu. Wakenya, haki yetu. Wakenya, haki yetu. Wakenya, haki yetu. Wakenya. waa dareenka qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka Mareekani kuwaasi oo dalbanayay cadaaladda Mascuud Muuse wiil dhalinyaro ah oo 2 bilood ka hor halkan lagu dilay isla markaana ilaa haatan aan cadaalad helin. hay'adda u dooda xuquuqul insaanka ee Muhuri ayaa waxay u qabteen taliska ciidanka booliska ee deegaankaasi muddo 14 maalmood in ay cadaaladda ay ku horkeenaan kuwii ka dambeeyay dilkii marxuum Mascuud Muuse. Kindiki ambaye ni waziri wa interior, you must intervene. Atuombi, tuna demand, tunataka, tunawapatia makataa siku 14 kuanzia leo. Kama hakuna inquest file yoyote imefunguliwa, kama hakuna mtu yoyote amefikishwa kizimbani, tutashirikiana na jamii hii unaiona hapa, community, familia Masud na watu wote wa kijiji hichi. Tutafanya maandamano makubwa sana na tutaenda kufanya maandamano pale Mariakani police station. halkudhagooda ayaa waxaa ka mid ahaa cadaaladda oo daahday waxay la mid tahay cadaaladii oo lagu diiday. Wakenya, haki yetu. Mariakani, haki yetu. aabihii dhalay Mascuud Muuse Xaaji Axmed oo 22 sano jir ahaa oo bishii afraad 24keedii lagu dilay deegaankan ayaa waxa uu sheegay in iyadoo ay haatan 2 bilood ay ka soo wareegtay dilka wiilkiisa uusan ilaa haatan helin wax cadaalad isla markaana uu ku eedeeyay taliska ciidanka booliska gaar ahaan waxda dama baarista in ay ka gaabisay baaritaankii iyo weliba sidoo kale hawlgalkii lagu raadin lahaa kuwii ka dambeeyay dilka wiilkiisa. taariikh 24 bisha afaraad wiilkayga halkan lagu dilay 2 bilood ayaa hadda ka soo wareegtay wax cadaalad ayaan helin malaha. dawladda waxaan ka codsanaa inaan cadaalad helo. dawladda waxaan ka codsanaa inaan cadaalad helo. 10 sano dukaankay halkan ku yeelaa oo dawladda ay ka qaadataa canshuur. waraaqii canshuurta dukaanka buuxa. maxaa canshuur u bixinayna ma Kenya mihiyo? soo dalka uma dhalana. soo dalka dawlad ma joogto. war waxaan u baahanahay cadaalad aniga. kilifiga ka untiga aan ku nool yahay. wax cadaalad oo ka helhaya ma jirto aniga. waxaan u baahanahay wiilkay cadaaladiisa. habeen iyo maalin ma hurday. habeen iyo maalin ma hurday. shaqadayda way halawday. dukaankayga kana ma soo dhax istaagi kare. wiilkayga soo xasuusan haya. dukaankayga maalinkii wiilkay la dilay ugu dambeysay. baasaradayda waa dhimatay. ciyaalka asaga ka yaray akhrisay u baahan yihiin. dawladda wili canshuuraysaas iga sii qaadan haysaa. maalin kasta canshuura liiga qaadaa. ma aniga bandheerada hoosteeda soo kuma nooli. soo ninka iyaana soo miihi. war cadaaladda xaggee u doontaa? haddaan dawladda cadaalad ka waaya xaggee cadaalad u doontaa? Axmed Cabdi Dhaqane oo isaguna halkan ka hadlayay ayaa waxa uu ugu baaqay madaxda ugu sareysa dalka oo uu ka mid yahay wasiirka amniga gudaha Professor Kithure Kindiki iyo weliba sidoo kale taliska ciidanka booliska ee dalka inay arrintan ay si degdeg ah u soo farageliyaan. dawladda waxaan ka codsanaynaa inayna maqasho laga soo bilaabo madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha oo nabadgelyada ku shaqale ninka booliska u weyn Mr. Koome ninka DCIC arrimaha sano kala sirdoonka ku shaqale Mr. Mohamed Amin iyo inta kale shaqada la wadaagta maanta waxaan ka codsanaynaa arrintan way xun tahay hadda ay dadweynaha Kenya noqdaan qofkii la dila aygaas wadada ku taraaray aska duwneen ma naqaana meel loo socdo. dawladda waxaan ka codsanaynaa in arrinta Mariakani la fiiriyo ninkaas DCIO nagala qabta arrintiisa la baara xumaan badan ayaa meesha ku jirto waxaan tuusanahay in asaga as qayb ka yahay haddaas asaga qayb ka hayna dad saaxiibyaalkiisu asaga mas'uul aska yahay oo qarinaya in ay arrinta ku jiraan oo ku fadhiyaan hadday ahayn muxuu u diidaa sawirka kale inaas dadka tus. Jamiila Ibrahim Duba oo ka mid ah dadka arrintan sida gaarka uga danqaday isla markaana ka timid magaalada Mombasa ayaa waxa ay sheegtay in dilka marxuum Mascuud Muuse baaritaankiisu uusan meel dheer gaarin. Sasa kijana aliuliwa bila sababu yoyote na alipokonywa pesa pia. Ndio tulililia serikali tupate haki ya mtoto wetu. Nauliza ni kwa nini hadi sasa hatujapata hata clue kutoka kwa serikali? Ningependa kuwahimiza wakuu wa sheria, serikali upande wa uchunguzi,
Tungependa mtusaidie tafadhalini, na tunauliza mbona imekaa mpaka saa hizi, na sisi tunajua mlango wa sheria iko wazi. Ndio maana watu wachukue sheria mkononi. iyadoo ay 2 bilood ka soo wareegatay markii halkan lagu dilay Mascuud Muuse oo ahaa wiil dhalinyaro ah ayaa qoyskiisu weli waxa ay dalbanayaan inay helaan xaqa wiilkoodii. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, deegaanka Mareykaani, countiga Kilifi.